السلام عليكم أصحابتي عن شعلة هاي إن برنامجكم أنا دين شاقة مانتين أنا دين إن دوبايو إن فكر كيسة نوح لها هبلا بدن أو كاستمر كيجا يدا وضعي شيء حق إن فيسبوك يجلس صعدة إن أو يقحرن أو إن بدن يجسوا ويدي حق محو هيداني إن شقة إذا وحي سؤال اللي حريرة يجا يسوق بيه مركز سؤال عشان قبلها زي كتمي فكر كده يجا يسكلها سؤال ما أنت تاجن وحويان محاسبة naaska gabadhu inuu dhaco naaska gabadha maxaa sababa inuu dhaco maxaana laga qaban karayaa waayo habluhu waxay aad curious uga ahaayeen oo doonayeen ogaadaan maxaa laga qaban karayaa naaska haddii uu dhaco oo gabadha uu dabco haddaba muxuu ahaydeenay gabadhu xubinteeda horaada ah naaska la yiraahdo waa xubin ilaahay ugu talagalay ma garanaysaa aesthetically quruxda dumarka inay cayinto at the same time wax ilmo quudiyaha gabadhu marka ay ilmo dhasho ma aragtay caanaha ilmuhu ka yimaado so maamooyin fara badan ayay la soo diristay iyo hablo gabdha ah oo aan wali guursanin in ma aragtay way ku dhacdaa in labadoodaba ay dhici karayso inuu naaskeeda hoos u dhaco gabadha muxuu ahaydeenay da'da gabadha naaska ugu soo baxaa waxa weeye hadda da'di aad bay u sii yaraatay 9 jir waa la arkay ilaa 12 jir bay kusoo bixi jireen 12 jir 13 jir bay gabdhaha ugu soo bixi jireen awalkii hore haddeerto ciyaalka hore u koraan 9 jirna waa la arkay marka goor hore ayuu gabadha u soo bixi karayaa yarta ah maxaa dumarka keena dhicitaanka naaska waxyaabo badan baa keena horta dhicitaanka naaska intaynan taa guda gelin noocyadiisa aan ka hadalno noocyadiisu way fara badan yihiin waxa la oran karaa waa mid xajmigiisu yar yahay weyn yahay waa mid la oran karaayo mid fadhiya iyo mid hore usoo dheer labadaba uu dhici karayaa dumarka qaarkood ilaa halka kalinkilta hoosteeda ku jira ilaa halkan dhexda muxuudanay laabta xabadka dhexdiisa ayuu soo gaadhaa waa ka fadhiyaa la yiraahdaa muxuu ahaydeenay kaas oo kale gabadha leh maasha Allah iyada hore uma dhaco uu hore ka soo dheer yahay xaggan ka bilaabmo gacanta dhinaceeda right head gacanta dhinaceeda uu ka bilaabmo uu hore u soo dheer yahay taas oo kale waxa weeyaan ta dhibaatada badanka gabdhaha uu ka dhaco noocaas ay u badan yihiin habkoodu muxuu ahaydeenay caadatan muxuu ahaydeenay naas walba waa taagan yahay marka uu soo baxo ma garanaysaa laakiinse waxa weeyaan inanta hiddaheeda iyo DNA-deeda ayuu ku xiran yahay hooyadeed eedadeed ehelkeed waalidiinteed waxay ay ka dhaxashay iyo iyadu sida ay maaragtay nolosheedu tahay labadaas ayuu u kala baxayaa haddaba gabadhu sidee ku ogaan kartaa inuu naaskeeda dhacay inaanu dhicin xagga aragtida gabdha iska shakiya baa jira wax walbo mooda mar walbo wax hagaagsan yihiin inay wax ka sii yihiin so waxa la yiri haddii xagga aragtida aanad ku qanacsanayn xagga aragtida marka doonaysid inuu ogaatid bal inuu halkiisii joogay inuu halkiisii ka dhacay ugu horeyn waa inuu la sinmaa naaskaaga ibtiisu waa inuu la sinmaa gacantaada qaybteeda sare kala barkeeda waa inuu saa ula sinmaa haddii ibtaadu intaa ka hooseyso taa macnaheedu inuu aad u dhacay maaha taa macnaheedu waxa weeyaan malaa xajmigooda aad u waaweyn gabdhaha maasha Allah ay yihiin so si kala loo tijaabin karaya haddii aad taa ka shakido tiraahdaa aniga wuu fadhiyaa laakiinse wuu yaro hooseeya wax laga yaabaa inay gabar gaaban tahay oo qiyaastaada qofka caadiga laga hadlaya ma garanaysaa gacanta kala bartankeeda inuu kusoo aadismo oo ilaa halka labada ibood ay isku mid noqdaan dumarka qaarkood way kala yara sareeyaan qofba waa nooc si gaar ah ilaahay abuuray maasha Allah isaga oo xigmadiisa laakiin qofba si ay gabadhu abuurantahay marka marnaba ha isku arkin in wax kaasi yihiin laakiinse qiyaasta inaanay isla ekeen baa laga yaabaa xoogay wax yar سنتيمتر ير ay kala duwan yihiin waxaad kaloo ku eegi karaysaa qalin baad soo qaadan karaysaa haddii aad istiraahadaba bal eeg in ma aragtay adig istijaabi guriga marka aad joogtid kaliga qol aad ku jirtid kaliga ayaad hoos gelinaysaa qalin ama anything aad haysid oo sidan u dhuuban haddii uu xajiyo ya uu ka dhici waayo taa macnaheedu waxa weeyaan naaskaasi waa dhacay haddii kale uu qalinkaasi ka soo dhaco amaba ma aragtay intuu yara xagga aad saa u yara geliso uu soo dhaco markaaba waxba badan maad dhicin taasina way waa sidaad waa habka aad u tijaabin karaysaa haddii aad rabto sida labaad ee u eegaysa naaskaagaasi inuu dhacay iyo in kale okay
waxyaabaha naaska dhicin karaaya waxaa ka mid a culayskiisa xajmigiisa kow ilmo aad gabadhu dhashay maamadu ay dhashay oo ay dhowr goor ilmo kala duwan nuujisay 2-3 meelahaasi miisaan dhimid degdeg oo qofka dumarka ku timi jirkeeda oo miisaanka ka dhacay si degdega ama ayadu dhaayad ha gasho degdega ama muxuu ahaydeenay nafaqa darra ha ku dhacdo waa miisaan dhimid degdeg xanuun baa keeni karaya taa laftarkeeda waxaa keeni karaayo oo kale cabidda sigaarka ama shiishada oo ah tobacco all type of tobacco use isticmaalka tubaakada waxa weeye waxay restricted ka dhigtaa oo ay yaraysaa oxygenka maqaarka gala marka elasticity ama isjiidankii maqaarka ku jira ilaahay ku abuuray ee naaska kor u qaaday naasku muruq ma aha naasku waxa weeyaan xubin ma garanaysaa cad iyo baruur iyo waxyaabihii caanaha ilmaha sameynaya ayay ka kooban yihiin so waxa weeye murqo gaaro ku jira ma jiraan oo giijinaya ma garanaysaa waa maqaarkun baa hayo xijina ka maqaarkii haddii uu dabco gabadhii ay cabto shiishad ay cabto weliba badsato cabitaanka kaliyaata maahay ay dhowr goor wiigii cabto oo muddo wado taasi waxay sababaysaa inuu maqaarkeedii oxygen badan aanu qaadanin waayo oxygenta waxa ka qaabta oo ka yareeya maqaarka muxuu ahaydeenay any type of tobacco alcoholaduna waa la mid iyadan dhibaatooyin bay ku keentaa maqaarka laakiinse dumarka muslimka ee Soomaaliyeed ma cabaan taasi soo badeecada shishadu wax iska noqoto wax ablihi tijaabiyaan wax dadka iska tijaabiyaan marka xitaa ninka ragga ah ee cabba sigaarka maqaarkiisu dhalaalkii iyo quruxdii iyo adkaantii is haysashada iyo adaygii ma yeelanayo ka gabadhii waxa dhacaysa hadii ay bilowdo xitaa gabar tahay oo ayna u dhalanin ma garanaysaa naas dhaca waxa laga yaabaa inuu maqaarkeedu dabco oo ilmo markay dhasho dhibaatooyin badan maqaarkeedu ku yimaadaan naaskuna uu dhaco nafaqa darra keeni karaysa gabadhaasi inuu naaskeedu dhaco waayo gabadhii waxa weeye waa inay cunto nafaqa leh cunto waa inay iska ilaaliso miisaan dhimidda degdega ah waayo gabdhaha jira imika iyagoo miisaan badani kore xagga uurka marka ay qaadaan marka ay ilmaha dhalaan degdeg miisaan badan iskaga rido muddo siinin waqti maqaarka uu ku soo noqdo uu isku soo aruuro oo uu ma garanaysaa isku soo noqdo taa haddaad degdeg miisaan iskaga rido naaskaaga degdeg buu u dhacayaa iyo nasasho la'aan haddaad nasan weydo maama aad tahay maama caways badan oo hurdo badan qaadanin oo nasanin ama shaqo badan gasha gurigana ka shaqaysa ilmahana ilaalinaysa taasi waxay keeni karaysaa nafaqa darro haddii aanad vitamin qaadan haddaanad cunto fiican cunin taasina waxay keeni karaysaa in naaskaaga dhaco waxa kaloo keeni karaya dhicidda naasaha keenshaliyada gabdhuhu xidhaan ama xidhasho la'aanta keenshaliyada qaarkood gabadhu marka ay yar tahay uma baahna keenshali inay xidhato laakiin haddii ay sport ciyaarayso ama miisaanka naasaheeda ama horaadadeeda hadday waaweyn yihiin oo culus yihiin waxay u baahan tahay inay xidhato keenshali ku habboon jimicsigaasi so waxa weeyaan waa in ay keenshali sidan oo kale ah xirataa si aanu boodboodku uga jilcinin this is a sports bra baa la yiraahdaa dukaamada la dhigaa sports bra bay u baahan tahay gabadhaasi haddii xitaa naaskeeda taagan yahay oo waxay ku xidhantahay activity-ga nooca ay ciyaarayso soo marnaba ma rabtid inaad boodboodid oo orodid oo jimka cayaartid haddaad xitaa gabar yar tahay ama haddaad tahay maamo muxuu ahaydeenay shaqo badan wada waad u baahan tahay sports bra ama working bra wax la yiraahdo oo ah keenshaliga shaqada oo 18 saacadood ilaa 18 saacadood gabadhu xidhnaan karayso oo garbaha goynaynin ogowna haddii culus yihiin horaadadaadu naasaha haddii culus yihiin oo ay de ma aragtay ما شاء الله caafimaad qaban of course haddii culus yihiin waxaad u baahantahay oo muddo badan aad xidhnaanaysa sport bragan ama rajabeetadan ama keenshiligan jimicsiga waxaad u baahan tahay in bandkooda ay ballaadhnaadaan si garbaha aanu ku goynin waayo waan arkay dumar badan oo garbaha xaggana wuu ka fiican yahay oo si fiican buu u qabanayaa xaggana waa dhuuban marka kan aniga waa igu filan waayo xagga dhabarku ka ballaadhan yahay okay so kaasi waa kaasi rajabeetooyinka noocyadooda ayaa kala duwan kan oo kale waxa weeyaan nooca leyska loo yaqaano waxa weeye gabadha ayaa buuxinaysa laakiinse
ma dhib badna xagga dhicitaanka gabadha dhibaato kuma keenaan. Okay, so markaa gabar waxaa xidhan karaysa uun ma garanaysa dee buuxda jirkeeda u buuxo. Okay, waxaa jira nooca supportka loo yaqaanay buushka la geliyo gabadha horaadada waaweyn leh kan oo kale kuma fiicna because xagga bir baa kasoo baxda, birtaa dumarka qabata badana. marka waxaa loo qaatay kalayska ama ka sports baraga ah ama muxuu ahaydeenay ku caynkan oo kale oo good quality ah. marka halkan rajabeetada meesha garbaha qabanaysaana waa inay ballaarnaataa. Okay, waa kan oo kale saacad ama labaad ugu badnaan xidhnaan karaysa. haddaad doonaysa inaad muddo badan xidhnaato waxaad u baahan tahay mid ka ballaaran inaad xiratid oo maaragtay dhabarka support siinayo, gabadha support siinayo. muxuu ahaydeenay xirashada rajabeetada goormaad goormay gabadhu bilaabi karaysaa? wallahi as early as maybe 15 gabdho hooyooyinkood usoo iibiyaan 13 jirana waa arkay. muxuu ahaydeenay qaar aan isticmaalin rajabeetaba ilaa marka ay ilmo ka dhashay u baahato waa arkay. gabar walba waxay ku xirantay sida ay ugu baahan tahay rajabeetada ama ujeedada ay ka leedahay. aan ka hadalna haddaba waxyaabaha keena waynu ka hadalnay dhibaatada ma garanaysaa naasaha gabadha dhacaya, waxyaabaha ay ka qaban karayso sida u joojiso amaba maaragta uga hortegi karayso ma garanaysaa miisaamid dhibidii degdeg ahayd ee dhibka keenaysa cimri degdegii. maamooyinka cimri degdegay oo kale shaqada ku badatay of course naaskoodii wuu dhacayaayo dee waxa way jirkii meelna baruur baa gelaysaa iskuma dheeli tirna. markaa sidee uga badbaadi karaysaa gabadhu taa aynu ka wada hadalno. waxyaaba badan bay gabdho qaban karaysaa. number 1 waa in horta caafimaad qabtaa. waa in ma aragtay hadday ilmo nuujinayso ka ugu horeeya aniga arrinka ugu horeeya qodobka ugu horeeyan u haysto inuu naaska gabdhaha ka rido waxa weeye nuujinta ilmaha. ka koowaad baa kaa ridi karaya adigoo xitaa ilma dhalin oo ay xooga yaro culus yihiin. haddaad ilmo dhasho ugu horeyn gabadha hadday ilmaha nuujinayso oo sidan u hayso ilmaha ay nuujinayso waa inaanay ma aragtay ilmaha ku daynin inuu jiijiido. Okay, qaar badan baa imka qoslayo oranay maxaa ka wada ilmaha jiijiid. waad garanaysaa waxaan ka wado marka hooyooyinka oo kale ilmahay ku daynayaan oo gacantu ku bujbujlinayaa ilkuhu ku jijiidaya. marka taa looma baahna, maqaarkii baa dabcaaya weeye taa macnaheedu. marka ilmaha inaad support siiso weeyaan. ilmuhu haddii hooyooyinka garbaha daala iyo gacmaha dhabarkay soo leexiyaan ama way soo foorarsadaan ta ugu fiican aan arkay waalidkay aniga in ilmaha loo dhigo barkin ya lagu soo support gareeyo oo ilmaha sidaa ugu soo qabato hooyadu ma garanaysaa ayadiina ilmihii sidaa u nuujiso sidaasaa ugu wanaagsan. rajabeetada nuujintana inay xirato ayaan aniga jeclahay oo rajabeetooyin ilmaha lagu nuujiyo ayaa jira. naasaha maadaama culusiina caano ku dhacayaan ha u deynin inay dabcaan oo sii ballaadhaan oo ay sii ma garanaysaa sii culaysiyaan miisaanka hoos usii jiido. gravity wax la yidhaahdaa jirta. gravitygaasina waxa weeyaan waa magnetka soo jiidaya ma garanaysaa. soo looma baahna gravity fara badan. marka ay culus yihiin supportka fiican inaad siisid weeyaan. sports baraa ma xidhan karaysid sababto ah waxa weeyaan hooyadii waa nuujinaysaa iyo marba maradii bay faydaysaa. waxaa jira rajabeetooyin ama keeshariye loogu talagalay ilmaha nuujintiisa. maamooyin badan baa ka warrami karaayo igu raaci karaya. marka rajabeetooyinkaasi meel gaara la furo bay leeyihiin oo ilmaha laga nuujiyo weli iyadoo naaskii support ay siinayaan. wayna kala fiican yihiin. iyaga ayaan rajeynaya inay xagga hoose idinku soo qori doonaan muxuu ahaydeenay noocyada ay jecel yihiin iyo meelaha laga helo hal iscaawiyo. taasi waa inaad ilmaha support siisaa marka haddaad nuujinayso hooyo nuujinaysa ay tahay. haddii ilmihii hore aanad sidaa yeelin ilmaha dambe sidaasaad yeeli kartaa. muxuu ahaydeenay qodobka labaad waxa weeyaan waa hooyada nuujinaysa inanta badeecada cabta ama maaragtay yarta ah haba yaraato ilaahamayna curanin haddii xitaa naaskeedu aanu dhacsanayn. hadday sii wada badeecadaasi ha ogaato inay oxygenka jirhkeeda iyo maqaarkeeda ka xidhayso oo cimri degdeg badan uu keeni karayo. wejigeeda isbedelaayo, nuurkeeda isbedelaayo, naaskeedana uu dhici karaayo. waa guarantee oo wax dhacaya. so iyaduna taa inay yaraysato hadday doonto iska bedayso weeyaan. waayo waaba makruuhba bahashu. laakiin haddii aad karayso inaad yaraysato iska dayso taasi ayaaba ugu sii fiicanba. waxyaabaha cimri degdega keena inaad iska ilaalisid ee ay ka mid tahay dhafarka faraha badan leh iyo maaragtay nafaqa darrada. waa inaad cunto nafaqa leh cuntaa. waayo dad badan oo nafaqa darra haysa ayaa jirta oo dadkeena ah oo cuntadooda ayna dheeli tirnayn oo at the same time-na ma aragtay hawl badan reerka u haya siiba maamooyinka laga hadlayaa.
tani maamooyinka aad u saameynaysaa maamadu waxay u baahan tahay inay vitaminkeeda cunto maalin leh hadday maalintii hal vitamina ku kabto cuntada yar ay cunayso wax badan bay nafaqada jirkeeda ka bedelaysaa iyo maqaarkeeda wuuna caawinayaa waxay kale u baahan tahay biyo badan inay cabto biyo cabitaanku waxa weeyaan 80% biyo ayaan ka samaysanahay maasha Allah ilaahay jirkeena ka sameeyay marka taasina ku support garaynaysaa in jirkii ma aragtay uu quenching helo oo aad biyo siiso oo nafaqo xitaa wixii aad cunto si fiican u raqdamaan oo ma aragtay ay taasi ka caawiso in ma aragtay ilmaha dad nuujinaysa xitaa aanu naaski jiidin oo caano kugu dilin laakiin maasha Allah caanaha toos u yimaadaan waxa kale oo aad u baahan tahay inaad samayso nasasho badan waa inaad samaysaa waa inaad nasataa oo haddaad qof weyn oo waayeela tahay oo aad shaqayso waqti si maalin walba naftaada ilaahumay 10 daqiiqadood ahaato meel aad fariisato xitaa sidaa intaad u yara fariisato aad yara nasato indhaha isku qabato ilaahumay ahaato haddii kalood helaysid maalintii saacad barkeed inaad yara jiifsatood seexato ama maaragtay goor hore fiidkii seexato marka aad cashada iyo hawsha reerka samayso oonad caways badan ku daahin week kasta oo weekendiga u daysata ama jimcayaasha ama sabtida iyo axadda haddaad dalka reer galbeedka sideena joogtid aad u daysatid cawayskaaga wax badan ayay naftaada ka taraysaa taasi allahuma salli calaa maxamed waxa kaloo aan doonay inaan ka hadlo muxuu ahaydeenay xagga hurdada oo kale dad ay hurdada ku yar tahay baa jirta haddii kafeynka uu ku dhibaayo kafeynka uu fiican yahay in qofka koob ama laba ka cabo qaxwo iyo shaah laakiin aan wax ka badan cabin marka gabdhaha yar yarka ah hadeerto waa arin iyaga dhibaato u keeni karaya waayo kafeynka Starbucks baa la cabayaa 3-4 koob Starbucks la cabayaa maalin oo dhan kafeyn too much baa ku jira kafeega la soo iibsanayo waa mid ka badan koobkii shaaha guriga maaragtay maamadu ka cabayso marka dhalinyarada yar yarka ah ka waantoobaan kafeega faraha badan ay cabayaan Starbucks iyo dhulkaasi waa kafeynka aad ugu badan kafeynka aan adigu qiyaasaynin halkii koob Starbucks probably frappuccino ah waxa ku jira maybe 3 koob oo qaxwo ah kafeyn in la mida ka laba hadaa ka cabtid maalintii iyo koobka shaaha subaxii aad cabaysid ka habeenkii aad xaafada ka cabaysid waxa laga yaabaa maalintii 6-7 koob oo kafeyn inaad cabto taasina ay wax ku dhinto ku dhibto so definitely yar yarku iyaga kafeynka ha yaraysteen muxuu ahaydeenay nafaqada iyo cuntada aad cunaysan oo cunto dheelitiran waa inay ahaato waayo vitaminku ha inoo dambeeya asaga waa iyo biyuhuba waa in horta cunto nafaqa leh aad cunaysaa oo cuntadaadi ay tahay cunto dheelitiran ogow ilmaha yar ee dhashay sida u kulkulinaysa in naftaada u kulkulisa weeyaan hadda tahay hooyo ama gabadh doonaysa quruxdeeda ma aragtay inay ilaashato cimri degdeg ku imanin muxuu ahaydeenay jirkeeda isbedel ku imanin dabac ku imanin oo doonaysa inay ma aragtay mar walba qurux badnaato da'day doonto ha ahaatay soo u baahan tahay definitely inaad ma aragtay cunto dheelitiran cuntid cuntooyinka aad cunaysaa mar walba ha noqdan qaar dheelitiran waxa way protein baa ugu horeeya oo hilib iyo ma garanaysaa beed iyo everything salaadada noocyadooda aan salaata la yiraahdaa salaadada noocyada kala duwan ku fiican wax laali wixii cagaara wixii beans ah waxa kale oo ku fiican muxuu ahaydeenay koob caana inaad cabto haddaad caato tahay inaad maaragtay cuntooyin nafaqo leh ku bedelato weeyaan oo aad cuntada isku qasabto haddii abteedkaagu xun yahay haddii abteedkaagu fiican yahay miisaan iska dhimaysana tartiib ha ku degdegin inaad wax walba jarto waa inaad mar walba ma aragtay tira cunto dheelitiran baan cunayaa xooga jimicsiga baan samaynayaa jimicsiguna ku fiican dhabarku kala toosinaya uu kala bixinayaa naaska dhacay xitaa jimicsiga gaara baa jiro oo laabta ma aragtay intaad sida u jiifsato laba dumbbell saa usoo qaadayso oo muruqa laabta ayaad ka hooseeya naaska ayaad jimcinaysaa wuu adkaanayaa dabeedna naaska wuu ku yara kacayaa marka aad gymka tegaysidna ha iloobin sports baraga inaad xidhatid mar kasta xitaa gabadh naasa yaryar haddaad tahay ama naasa waaweyn mar walba sports bra waad u baahantahay haddaad jimicsi tegaysa waayo waa ordaysaa boodboodka ayuu kaa qabanaya haddii xitaa aanay naasahaagu dhacsanayn mar walba gabadh ka maaranta sports bra ma jirto snackska kuus noqotay waa inaad horta cuntooyinka fishka ha iloobin wax halaali wixii aan dietka ku jirin waxaad already cuntay protein iyo beed iyo hilib iyo waxaas waa okay beans iyo waxa laakiin wixii aanad cunina ka dhiman waa inaad ku dadaashaa oo ay ka mid tahay kalluunka muxuu ahaydeenay maxay ahayd baradhadii iyadoo sweet potato is really good for you
muxuu ahaydeenay wax kaloo kuu fiican seafoodka qofkii seafoodka jecel is very 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 good yeah anything omega fatty leh oo xitaa avocado ku jira muuska khudradda snackska waa inaad 3 goor wax cuntaa maalintii 2 goor snack aad cuntaa snack aad cunayso brown waa inuu kamid ahaada make sure caloosha inay ku dhaqaaqdo oo caloosha ku socoto oo si fiican calooshaad u socoto cuntada kugu istaagan haddii kale nafaqadii jirkii maraqaayo mana isticmaali karaayo waayo xanuun iyo constipation bay keenaysaa xanuunkuna waxa weeye ka sababa kow ka ah qofkaasi inuu ma aragtay jirkiisii dee hagaagin adigoo caafimaad qabay haddii aad xanuunsatid waxaa laga yaabaa inuu naaskaaga dhaco jirkaagii furfurmo kici kari weyda dhabarka ku xanuuno meel kasta ku xanuunso xoogay jimicsi aad u baahan tahay cunto dheelitiran baad u baahan tahay waxaad u baahan tahay rajabeeto kugu qiyaasan oo kulle eg oo support ku siisa haddii xoogay aad yara culus tahay waxaad u baahan tahay inaad biyo cabto waxaad u baahan tahay inaad nasato waxaad u baahan tahay ilmo inaad hadaad nuujinayso inaad ma aragtay support samaysato rajabeetada nuujinta xidhato oo ma aragtay ilmaha support garayso okay waxaad kaloo u baahan tahay jirkaaga sidiisaba inaad kulligii jimicsi siiso kol iyo kal qof kasta jimicsiga uu baahan yahay laakiin khaasatan haddaad tahay gabadh ay dabceen horaadadeeda ama naaskeedu xooga yara jilcay oo doonaysa inay maaragtay soo giijiso oo caawiso nafteeda jimicsiyada murqaha laabta waa inaad samaysaa waxa kamida kuwa la kala bixinaayo waxa kamida dumbbellska la qaadaayo ya waxa kamida kuwa dhabarka la soo jiida sida la yiraahdo oo murqaha garabka iyo laabta oo dhan ma aragtay adkeynaya marka way soo kacayaan waxaan rajeynayaa inaad barnaamijka ka hesheen cidii su'aal haysa iyo wixii aan ka tagay ha ii dhaafto fariin mawduuca dambe doonaysaan insha Allah waan idin la socodsiin doonaa waxaan kaloo doonayaa inaan idin sheego inaan barnaamij kale idin duubi doono maanta aad baan idin soo salaamayaa waad mahadsantihiin like and subscribe share gabdho badan oo walaaladeena u baahan ayaa jira oo ka faa'iideysanaya insha Allah waxaan jecelahay channelka Somali Fashionista inaad ka faa'iideysataan anigoo milga ah oo barta qurxinta daryeelka maqaarka iyo ma aragtay timahaba aad baan idin soo salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله هاي أد بدو مهندسين فريمة هذا هدي قرئي صوت درتان encouragement سؤال هذه صوت درتان أو مرة والببراي بدن يدين كتشوابون شعلها ويل بكو وقفي عنو قومهم سنين برنامج شسدان أو كلا أو عن يوتيوب كتشنا عن يدين صوت دياري أد بدو مهندسين السلام عليكم like share and subscribe bye